wanaagsan dhageystayaal saacada Afrikada bari waa 7:13 bisha December 2022 qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah shirka madaxda Afrika iyo Mareykanka oo maanta ka furmaya magaalada Washington arrimaha xuquuqda aadanaha ayaana kamid ah waxyaabaha lagu soo qaadi doono annaga dalka difaaca xuquuqda aadanaha ka ahaan waxaan bandhignay maalinta ay hogaamiyaasha Afrika iyo Mareykanka hogaamiyahoodu ay kulmayaan in walaac aad u badan oo ka jiro qaaradda Afrika ku saabsan dhowrista xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda muwaadinka garoonka magaalada Qabri Dahra oo dib loo furay kadib 3 sano oo xidhnaa xubno kamid ah baarlamaanka Yurub oo lagu eedeeyay in laaluusha ka qaateen dawladda Qatar xilli koobka adduunka uu marayo meel xasaasi waxaanu maanta eegi doonaa sida magaalada Jigjiga looga daawado koobkaasi qodobada iyo qodobo kale Soomaalida caalamka ku saabsan waa ay noo soo socdaan balse marka hore warkii dunida iyo Saciid Xasan Anteeno mahadsanid Axmed booliiska dalka Bahamas ayaa xiray aasaasihii iyo madaxii hore ee shirkadda burburtay ee sarifka lacagaha online-ka FTX waxay sheegeen in Mareykanka uu dacwad dambi ah ku soo ogay Sam Bankman-Fried ayna u badan tahay inuu dalbado in loo soo gacan geliyo dadkii maal gashtay shirkaddan musallaftay ayaa loo maleynayaa inay khasaareen balaayiin dollar sargaal hore oo ka tirsanaan jiray sirdoonka dalka Liibiya ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala dalka Mareykanka isagoo lagu eedeeyay inuu sameeyay bamkii burburiyay diyaarad rakaab ah oo dul mareysay markii la qarxinayay magaalada Lockerbie ee dalka Scotland in ka badan 30 sano ka hor Abu Agila Mas'uud wali lagu meelin wax dambi ah 270 qof ayaa dhintay markii diyaaradda Panam la soo riday booliiska dalka Brazil iyo taageerayaasha madaxweynaha xilka ka sii degaya Jair Bolsonaro ayaa isku dhacay kadib markii la xiray hogaamiye dadka asalka ah ninkan ayaa dalbaday afgambi military si looga hortago Luis Lula da Silva inuu xafiiska qabto bisha soo socota guri ku yaala goob go'doona kana tirsan gobolka Queens Island ee dalka Australia ayaa waxa ku dhintay 6 qof oo laba ka mid ah ay yihiin booliis ra'iisul wasaaraha dalkani Australia ayaa sheegay inay ahayd maalin murugo leh shirkadda Twitter-ka ayaa waxay kala dirtay golaheedii kalsoonida iyo badbaadada oo ahayd koox bixisa talooyin oo ka kooban ku dhawaad 100 urur madax bannaan oo rayid ah iyo kuwa xuquuqul insaanka oo u xil saaran waxa ka qabashada in si khaldan loo adeegsado caruurta hadallada nacaybka iyo dhibaatooyin kale xubnaha ayaa lagu wargeliyay go'aanka iyadoo loo sii mareeyay email wax yar ka hor mar ay kulan yeelan rabeen ugu dambeyn 100,000 oo caruur ah oo ku nool boqortooyada midowday ee Ingiriiska ayay tahay in hiddasidahooda si buuxda loo habeeyo kaasoo noqonaya mashruuc cilmi baaris ah oo la rumaysan yahay inuu yahay kii ugu ballaarnaa ee noociisa ah ee adduunka waxay baari doonaan ilaa 200 oo kiis oo la xiriira faraca caruurta oo ay ku jiraan cudurrada xunxun ee halista ku keena unugyada jirka beerka sanbabada iyo xameetida inta waxay nagu dhan warkii aan dib idinku celiyo Axmed Badar iyo qeybaha kale ee barnaamijka Axmed Saciid Xasan Anteeno iyo warkii dunida ayaa dhageysanayseen u diyaar garooba qeybaha idaacadda subaxnimo inooga hadhay aan ku bilownay gudoomiyaha baarlamaanka Yurub ayaa sheegtay in golaha ay soo food saartay daleecayn kadib markii ay soo baxday fadeexad la xiriirta in dawladda Qatar ay siisay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka lacag laaluusha iyadoo la hadlaysay golaha ayay Roberta Metsola sheegtay in golahu uu bilaabi doono baaritaan gudaha oo ku saabsan eedeymaha musuqmaasuqa waxay sheegtay inaysan jiri doonin isla xisaabtamid la'aan ama wax la qarin doono Axmed Nagaash ayaa imika suudahay la fadhiya Axmed balfaafintansi axmed sida aad carabkaba ku dhufatay wararkaasi waxay soo baxeen kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen booliska dalka Belgium-ka ee ku taalo xarunta midowga Yurub baarlamankiisu ay ilaa jimcihii ilaa shalay oo isniina ay baadhayeen oo arintuna ay daba socotay tuhun soo baxay oo ah in Qatar ay lacag siisay qaar ka mid ah xildhibaanadaasi baarlamanka midowga Yurub si ay u difaacaan oo ay ugu guuleysato martigelinta koobkan haatan ka socda dalka Qatar xildhibaanada qaarkood ayaa waxa la sheegayaa in ay dacwad oogayaashu ay sheegayaan inay heleen lacago ku dhow ilaa 600,000 oo euro oo laga helay mid ka mid ah
dadkaasi eedaysan gurigiisa sidoo kale lacag ilaa 150,000 oo euro ah ayaa laga helay iyaduna meel hudheela oo ku jirtay iyaduna boorso ku jirtay sidoo kale waxay booliskaasi baaritaanka wada amar ku bixiyeen in la joojiyo oo kombiyuutarradooda iyo telefoonadooda wixii dhaatay ku jirta aan la masixi karin ee la wado dadka ilaa haatan la magac dhabay ee la xidhay waxaa mid ka mid ah gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka midowga Yurub gabadh la yiraahdo Mescalili oo u dhalatay iyadu dalka Greega halkaas oo iyadana la sheegay in hore loogu yaqaanay inay difaacdo dalka Qatar haatan wararku waxay sheegayaan in dalkeedii hantidii u taalayna ay dalka Greega uu fariisiyay oo xayiray sidoo kalena ay haatan xabsiga ku jirto baaritaanadaasina ay aad u socdaan dhowr kale qof oo kale oo iyaguna xildhibaana ayaa gudaha la dhigay gudoomiyaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa iyaduna waxay ku sheegtay eedeymahaasi qaar aad u lafjab ugu ah midowga Yurub iyo baarlamaankiisaba waxaana sheegtay dimuqraadiyaddii dalalka midowga Yurub haatan uu weerar iyo dhaawac weyn uu soo gaaray weerar culusna uu ku socdo sida ugu haboonna ay tahay in walba la cadeeyo oo talaabo buuxda laga qaado lagana hortago fadeexadaasina la cadeeyo cidda iska leh si aanay dhaleecaynta iyo fadeexadu u wada gaadhin oo aanay u saameynin midowga Yurub oo dhammaystiran institution ahaan ama hay'ad ahaan sida uu dhisan yahay ayay sheegtay baaritaanadaas wali socda arinta ugu weynina waxa weeyaan lagu wadeynay xildhibaanadaasi inay lacag ka qaateen dawladda Qatar oo ay doonaysay inay u ololeeyaan si ay ugu suurto gasho martigelinta koobkan ay haatan ku guuleystay 2022 ee ka socda haatan Qatar arintaasna wali faahfaahinteedu way soo taraysaa booliska dalka Belgiumna gacantay ku hayaan baaritaanada waxaana la filayaa booliska loo dalka midowga Yurub ka socda oo khubarayna iyaguna ka qayb qaataan baaritaanada Axmedow nagashaad ayaa mahadsan tahay imikana wararka Soomaalida haddii aan eegno garoonka diyaaradaha ee magaalada Qabri Dahar oo muddo xidhnaa ayaa mar kale dib u howlgalay oo shaqadii dib u bilaabay garoonku waxa uu xidhnaa 3 sano ee la soo dhaafay shirkadda duulimaadyada ee Ethiopian Airlines ayaa horay u sheegtay in sababta uu garoonka u xirmay ay tahay rakaab la'aan Abdi Raage Maxamed Shire gudoomiye ku-xigeenka golaha Qorraxay gobolka Qorraxay ayaa ka waramaya garoonka iyo sida dib loogu furay duulimaadkii diyaaradda Ethiopian Airlines si fiican buu bilowday maalinka shalay ahayd isniinta ahayd xagga dadka rakaabka ah duulimaadka raacayay waxaad moodaysaa dadku inay baahi badan u qabeen dad badan oo duulimaadka u baahnaa ayaa raacay oo rakaaba dad badanna oo Addis iyo Jigjiga ka soo raacayna way la socdeen afifaalo fiican oo baahi loo qabay ayaa ka muuqday oo rajaynayna inay ka sii badan doonto muddo 4 sano ku dhow ayay aeroboortka uusan shaqaynaynin kadib markii Ethiopian Airlines ay sheegtay in rakaab la'aan ay halka ka jirto sababta noocaas ma la qabtaan maamulka shirkadda Ethiopian Airlines maya walaal markii hore waxa uu duulimaadku u istaagay xilligii socodka guud ee adduunka la joojiyay ee COVID-19 loo sameeyay sababta uu istaagtay markii dambe la fasaxayna meelihii kale ama la sii daayay COVID-19 laga fasaxay dalahaan sidii ku sii taagneed ka bacdi waa laga howlgalay oo waxay u baahatay in laga howlgalo si toos ah marka looga howlgalay xukuumadda uga howlgashay sidaasana lagu soo fasaxay laakiin lama qabno midan ah inay rakaab la'aan la istaagtay maalintii shalay ahayd isniinta ahayd ayay duulimaadkii dib u bilowday meeqa cisho ayay imaan doontaa magaalada Qabri Dahar halkaysa dadka u raaci doonaan ama ka soo raaci doonaan maadaama oo doodan ah rakaab la'aan ay jirtay oo iyaga xaggooda ay ka dhiganayeen sababayn innaguna COVID-19 ahaa waxaan nidhi tijaabo maalinka isniinta ah toddobaad walba halka maalinka isniinta aan tijaabino kabacdina aysan anagu rajaynayna ama codsiganu yahay waa inaan maalmo kale ku darsanno meelaha ay tegi doonta waxaa ka mid ah Addis Ababa Qabri Dahar Jigjiga Qabri Dahar ama toos loogu raaci doona Addis Ababa ama qofku haddii uu rabo uu Jigjiga toos ugu tegi kara xaggaan uu ka soo raaci karo sidaas la mid ah Ethiopian Airlines maamulkeeda waxay sheegeen in rakaab yari ay jirto marka ma isleedahay maalinta isniinta ah maalin labaad oo lagu daro waxa loo helayaa rakaab sidaan ku rajaynahay ama anagu ka shaqaynayna hadda waa in maalin labaad la helo waxaan u sameynaa in iska imaato ma ahe waa in rakaab ku filan aan rajaynayna in la helayo maadaama gobolka Qorraxay guud ahaantiisa iyo gobolka Doollo oo asagana xagga naga sii xiga ay adeega Ethiopian Airlines ay bixin doonto ay ka faa'iideysanayeen marka waa rajaynayna in la heli doono marka la eego basas ayaa hadda jira laamiga ayay ku taalaa Qabri Dahar Jigjigana in badan uma jirto marka la eego kharashka lagu raacayo diyaaradda iyo dadka sida ay ku gaari karaan magaalada Qabri Dahar iyo degmooyinka markaasi gobolka Qorraxay hoos yimaado
misleedahay dad badan ayaa ku dhiiran doona ama u heelan inay raacaan waxa weeye diyaaradda marka loo eego waa runta jigjiga iyo qowridahar kilomitirka ay isku jiraan kilomitir 200 kilomitir weeye oo wadan laamiga la marayo oo riskigeedu iska badan yahay iyada oo basaska ay shaqeynayaan oo iyada ay bixin doonaan laga hor istaagi doonin haddana markii la eego fuleedka adeega ay bixinaysay oo inaad jigjiga u socoto 40 daqiiqo adsaabana hal saac wax la mid u socoto dadku way door bidi doonaan sana aaminsanahay iyadana door bidi doonaan ay raaci doonaan dad badan ayaa aaminsan imaatinkii dowladda xukuumadda Mustafa Maxamed Cumar darteed in loo xidhay dadka noocaas aaminsan maxaad ugu jawaabi lahayd gudoomiye ma wala Ismaaciil taas ma jirto waan saan sheegay waxa sababta loo joojiyay waxay ahayd markii uu adduunka xanuunka COVID-19 ee dowladda caalamka sidooda loo joojiyay dowladnimada la joojiyay bay qayb ka ahayd waxaan dhihi karnaa dadaalka la geliyay ee xukuumaddu gelisay yay hadda ku imaatay ilaahay qadartii una sababeeyay oo ilaahay uga dhigay adeeg inay bixiso annaga laftirkanaga waxaa jiray xilliyo aan dadaalka qayb ka ahayn oo diyaaradda asiyada intuu u socday intay satellite ku qaadaan sawirrada ay sida uu yahay garoonka laftiisa ma dayacan yahay mise uu fiican yahay ay sawirro ku qaadayeen kabacdina annagu aan ka howlgalaynay oo haddii ay jira meelo uu fensiga ka dhacay meelo u baahan in la hagaajiyo aan annagu ka howlgalayno hagaajinayno dadaalka wixii gelinaya xukuumadda ay ahayd laakiin dadka erayada isticmaalaya waa dad u arka inay chances siyaasadeed oo bulshada ay ku jahayn karaan wala muuqdo intaas kaasi waxa uu ahaa Cabdi Raage Maxamed Shire gudoomiye ku-xigeenka gobolka Qorraxay oo warramay wariyaha BBC-da Ismaaciil Buurga walka nagala socotaan walaantaabka Soomaaliga ee BBC-da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba imikana Mareykanka hogaamiyaasha Afrika ayaa ku sii qulqulaya Washington ka hor shirka Mareykanka iyo Afrika uu martigelin doono madaxweyne Joe Biden shir madaxeedka saddex maalmood ka socon doona halkaasi ayaa bilaabmaya maanta waxaana ujeedadiisu tahay in lagu muujiyo sida ay uga go'an tahay maamulka madaxweyne Biden inuu danaynayo qaaradda sida ay sheegeen qabaqabiyaasha kulankaasi 49 kamida madaxda dalalka Afrika iyo gudoomiyaha midowga Afrika Moussa Faki ayaa lagu casuumay shirkani dalalka Mali, Guinea, Sudan, Burkina Faso iyo oo midowga Afrika uu hakiyay xubnimadooda ayaa lagu casuumin kulankani Eritrea ayaa sidoo kale ka qayb gali dooneen kulanka u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba dalalka Afrika Xasan Shire oo kamida dadka ka qayb galaya shirkaasi isla markaana kamida dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha Afrika ayaa Faadimo Macalin Abubakar uga waramay muhiimadda la siin doono arinta xuquuqda aadanaha taas Mareykanka baa ka jawaabaya laakiin anaga dadka difaaca xuquuqda aadanaha ka ahaan waxaan bandhignay maalinta ay hogaamiyaasha Afrika iyo Mareykanka hogaamiyahoodu ay kulmayaan in walaacaad u badan oo ka jiro qaaradda Afrika oo ku saabsan dhowrista xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda muwaadinka waxaan hoosta ka xariiqaynaa oo aan rabaa inaan ku sheego inaan ku dul istaagnay in tartan lala galayo Shiinaha iyo Ruushka marka ay noqoto qaaradda Afrika hanashadeeda iyo in ganacsi lala galo hogaamiyaasha Afrikaanka iyo dadka Afrikaanka ah inaysan naqanin baan leenahay mid maaragtay loo sameeyo ayada oo dhinac laga eegayo amba maaragtay hoosta la gelinayo xadgudubyada qayaxan ee xuquuqda aadanaha ee ka dhacaya qaaradda Afrika marka la eego dhanka xuquuqda aadanaha ee Afrika ee sidaad sheegtay dawladda ka qabtaan maxaa ugu waaweyn oo aad leedihiin waa ay ka jiraan Afrika waxa weeye in colaad baahsan oo safmareen ah oo dad fara badan ay ku leeanayaan ayaa qaaradda Afrika min saaxil ilaa iyo geeska Afrika ka taagan Afrikada dhexe kama maqna waxaa jira in abaaro kulul oo aad iyo aad u xanuun badan ay sababeen cimilooyinkan maaragtay isbeddelka ku dhacay oo haddana si qaas u taabanaya qaaradda Afrika dadkiina ay macluul iyo gaajo ay u joogaan waxa kale oo jira sidaad garan karayso xadgudubyo oo aad u dhib badan oo ka dhan ah dadka shacabka ah khaasatan dadka haweenka iyo carruurta ah oo ka dhacaya meelo fara badan oo hadda aan ku sheegay oo maaragtay gulufkaas colaadeed uu ka jiro oo shacabkii maaragtay aan loo aabayeelin particular dadka oo marasta ah
Soomaaliya oo kala hadii aan eegno si gaar ah diiradda loo saaraya Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada hadda aan kaaga sheekeeyay oo ah oo dadkan maaragtay negative-ka ah amba maaragtay la yiraahdo xagjirka ah ay saameyn badan ku leeyihiin nolosha dad badan oo Soomaaliyeed oo nidaamkii dawliga ahaa oo iska daciif ah uusan gaari karaynin si uu dadkaasi uga badbaadiyo dadkan maaragtay dhibka ku haya shacabkoodii waxaad arkaysaa dadkii waxgaradka ahaa in maaragtay madax laga tooganayo oo dadkaasi iyo dad kaloon aan garanayn anaga waxay yihiin ay maaragtay dhibaateynayaan dadkaasi maaragtay aqoonyahanka Soomaaliga ah in hodheeladii lagu dikaynayay amba la jeefay lagu keenayo oo markaasi baaba aad u badan meeshaas uu ka dhacayo even ay qaadanayso maalin amba labo sidii looga saari lahaa amba maaragtay loo qaban lahaa amba si loo yeeli lahaa dadka marka sameynaya marka waa dhib badan baa dadka Soomaalida heesto waa Ilaahay baan ugu baryay inaan dhibka ka bixiyo laakiin xaaladoodu waa xaalad aad u cakiran oo ka duwan qaaradda Afrika inteeda kaleeto marka waxaan aad u aan maaragtay diiradda u saareynaa in Soomaalida dadaalka hadda ay bilowday in lagu taageero oo dadkan maaragtay marka koowaad wadankii ka dambeynta sharciga lagu soo wada rogo in gurmad degdeg loo helo dadka Soomaalida ah ee dhibaatadu ay haysato marka meeshan waa soo jeedin oo bini'aadanimo aan wadnaa laakiin ma gacan farku ma fiiqayna wixii meesha ka jiray maxaa yeelay meesha mashaakil badan baa isdul saaran marka midba mar in la furdaamiyo way taa macnaheedu maaha in xuquuqda aadanaha dhowristeeda lala sugo in marka koowaad dadkan maaragtay dhibka wado dhibkoodii lasoo afjaro ma aha xuquuqda aadanaha waa in la saan qaadaa mar allaala marka even operationada noocaan ay dhacayaan iyo mar kastaba waa in xuquuqda aadanaha dadka Soomaalida ah in marka koowaad dadka ciidanka ah amba maaragtay nabadda sugaya iyo kuwana taageersan oo caalamka nooga yimid inay aad uga taxadiraan inay dhowraan xuquuqda aadanaha dadka Soomaalida xasan sheer oo kamid ah dadka u ololaya xuquuqda aadanaha iyo kaasi oo Faadumo Macalin Bakar u waramayay haddii dhageystayaasha Facebook anaga oo qodobkii hore ka soo dhiibtay fikirkooda waa bogaadinaya ayuu leeyahay saxariid xashaaraad daarad in dib loo furo garoonka diyaaradaha ee Qibrida Dahar oo muddo 3 sano xidhnaa waxay la tahay inay qayb weyn ka qaadan doonto isu socodka dadka ayuu leeyahay waa mahadsan yahay dhageystaha kale waa Baashi Xasan Cilmi waa bogaadinaya ayuu leeyahay isagana in dib loo furo garoonkaasi haddii imikana aan eegno dalka Koonfur Afrika baarlamaanka Koonfur Afrika ayaa la filayaa inuu yeesho fadhi gaar ah oo kaga hadlayo warbixin ay soo saareen guddiga khubaro ah oo dhanka sharciga ku sheegeen in laga yaabo in madaxweyne Cyril Ramaphosa uu jabiyay daartii uu dhaartay arrintani waxay la xiriirtaa fadeexad dhanka markaasi musuqmaasuqa iyo lacag la sheegay in beertiisa lagu qariyay taasi oo muddooyinka ugu dambeeyay socotay wariyaha BBC-da Namsa Maseko ayaa warbixintan Johannesburg naga soo dirtay Saciid Xasan Anteeno ayaa soo jeedinaya madaxweyne Cyril Ramaphosa mustaqbalkiisu haatan wuxuu ku jiraa gacanta xildhibaanada maadaama oo ay cod u qaadayaan in xilka laga xayoobiyay in kale cadeemo muujinaya inuu sharciga iska dhaga tiray markii ay soo baxeen eedeymaha loo soo jeediyay ee ah inuu qariyay lacagta adag ee laga xaday beertiisa ayaa sii kordhiyay dalabyada lagu doonayo inuu iscasilo Ramaphosa ayaa sida la sheegay beeniyay inuu wax sharciga baalmarsan ku kacay xisbiga talada haya ee ANC ayaa faray 230 xildhibaan oo ay ku jiraan kuwa madaxweynaha ka soo horjeeda inay ku gacan seeraan warbixinta baaritaanka lagu ogaaday inuu ka been sheegay dhaartii uu xilka u maray sababtana wuxuu xisbiga ku sheegay in wali arintaas dacwadeeda ka socoto maxkamadda laakiin waxa dhici karta in xildhibaanada qaarkood arinta dhagaha ka fureystaan oo ay xisbiyada mucaaradka ah doonaya in xilka laga xayoobiyo la saftaan haddii madaxweyne Ramaphosa uu ka badbaado gulufkan kaga kacay baarlamaanka waxay u badan tahay in mar labaad loo doorto gudoomiyaha xisbiga ANC oo shirweynihiisa lagu dooranayo hoggaanka xisbigu uu furmayo maalinta Jimcaha ah Saciid Anteeno ayuu ahaa halkaad nagala socotaan walaabtabka Soomaaliga ee BBC-da koobka adduunka ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka waxay soo gaareen semifinal iyadoo oo ay 4 kooxood soo hareen kuwaasi oo kala Argentina, Croatia waxayna ciyaari doonaan maanta Faransiiska iyo Morocco waxay wada dheeli doonaan Arbacada haddaba ciyaarahan tan iyo intii ay bilaabeen waxay lahaayeen xiiso gaar ah waxaana shaashadaha ka daawanaya dad badan haddaba magaalada Jigjiga waxay ka mid tahay goobaha sida weyn looga daawado ciyaaraha koobka adduunka Ismaaciil Burgaaba ayaa warbixintan inooga soo diyaariyay
reer jigjiga kama duwana malaayiinta caalamka ee shaashadaha kala socda tartanka loogu daawashada badan yahay ee koobka adduunka oo sannadan ay martigelisay qatar boqolaal ayaana isugu yimaada hoteelada iyo goobaha lagu shaahay ee magaalada si ay u daawadaan koobkan lama filaannada badan ka sokow xaramihii hore ugu furnaa ka ganacsiga daawashada ciyaaraha maadaama tartanka koobka adduunka uu soo jiito dad badan oo hore aan u daawan jirin kubadda cagta sida uu sheegayo bishaar xaaji waxa ugu badanaa meelo la isugu imaado dadku ugu xishaan waxaa laga xamaasadda iyo dadal ciyaar daawashada ay leedihiin oo wada analyse garaysaan marka laga reebo laakiin it's everywhere meel kasta ku jira guri kasta ku jira xarumaha maqaaxyaha meelaha laga cunteeyo hoteelada meelahaas oo dhan baa laga helaa laakiin dhalinyarada oo kale dadka sportiga xiiseeya dee dad ay sheeko wadaag leeyihiin oo wada analyse gareeyaan oo ay qaarkood xataa ay laga yaabo inay sharac dhigtaan iyo ay meelo isugu ururaan weli waa jiraan xarumo gaar ah oo DSTV iyo BeIN Sportia la kireeyo lacag laga qaado laakiin waxaa ka saamayn badan hadda moobeelada xarumaha gaarka loo leeyahay guryaha kuwaasaa ka saamayn badan baad moodaa especially World Cup markay noqoto dad waaweyn baa daawada dadka waaweyn oo suuragal maaha meel la kireeyo oo DSTV laakiin hoteelada iyo guryaha iyo xataa haweenka xaafadaha jooga yaa iska taageera World Cup sanacooyinka cusub waxay sahlaan in dad badan ay si fudud u helaan ama ula socon karaan ciyaaraha adduunka laakiin dhalinta qaar ayaa waxay qabaan in keli daawashada ay xamaasad lii tahay sida mustafa maxamed iyo ayaanle isaaq oo kulan walba si wada jira u daawada shaleemada ka qof badan aad uga jeclaan qaylada markii goolku dhalo xamaasadda falanqaynta ragga dhalinyarta dadkaad xifaaltamaysaan yani contract sad caqabada iskugu tiineed labada dhinac u kala leedihiin anigu kubadda saasaan qabaan hadda sidoo kale ayaan laan daawano meeshan haddan oo kale inaad guriga ka daawatid ciyaarta dambe hadda xiisin ma yeelanayso laakiin ciyaartan hadda waa la falanqaynaa waa la hadlaa farqi weyn baa u dhexeeya yani aragtidan qaba sababtoo xilligii hore ka fiicnayd aaladdu wax badan bay dadka dhaawacday marka xilligaa way kala fogeyso keligaa waa caawa dhan daawadood ku caajisay ciyaarta oo laga yaabo inay kaliya hal tahay baad ka bixi in xilligaa hore dad kooban baa daawan jiray dadka koobanna xamaasad bay u yeeli jireen oo dee waa lagu xifaaltami jiray derbi hadda Croatia iyo Brazil oo kale waa lagu xifaaltami marka keliya daawanayso waxa ka xaraar badan oo ka xadaarad badan oo ka xamaasad badan marka dad lagu daawanayo waa la doodaya marka dad lagu daawanayo ciyaarta la falanqeynaya waa la doodaya wax badan baa la isla eegaya